kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada channelka Salma Vlog and Entertainment. haddii nagu cusub tahay subscribe oo qaybta gaduudan ku dhufo isla markaana furo meesha gambaleelka ah si aad noola socoto oo aan muuqaalada aan soo gelin doono ay kuugu soo hordhacaan insha Allah. waa mid ka mid ah sheekooyinka ay aadka ugu badan yihiin marka la eego Afrika. waxaa dadka ay sheegaan in dhibaatooyin ay kala kulmaan xilliga hasaawaha haweeneyda carmalka ah ama garoobka ciyaalka ay dhasho mararka ay shukaansi ahaanta ugu imanayaan gurigeeda, taas oo ciyaalku ay mararka qaarkood ka hinaasaan ama ay ka maseeraan in nin aan aabbahood ahayn uu hooyadood shukaansado sida dhowr mar dhacday. haddaba waxa aan idinla wadaagaynaa sheeko kooban oo ka dhacday dalka Uganda. baadiyaha dalka Uganda ayaa la soo tabiyey in wiil dhalinyaro ah uu hasaawo ahaan ugu tegey haweeney wiil yar haysatay. wiilka ayaa ka maseeray in hooyadiis uu la sheekaysto ama waxa loo yaqaano boyfriend ay kaga dhigato ninkan aan aabiis ahayn, taasoo aad uu uga carooday. waxa uu isku dayay inuu ku sasabo waxyaabaha macmacaanka oo dhinaca qoriga uu ku jiro, laakiin wiilkaas yar ayaa ka dhaga adeegay. bal ka waran Soomaaliya marka la eego, ma dhacdaa oo adigu ma ka maseeri lahayd qof aan aabbaha ahayn haddiiba Ilaahay uu qadaro hooyada iyo aabbaha kala tagaan in nin kale ay is-shukaansadaan amaba uu guursadaba? sideese uga falcelin lahayd adiga? fariin noogu reeb qaybta kommentiga aragtidaada. gudaha daawadayaal intaasaan ku soo gabagabeynayna muuqaalkan oo aad ka daawanayseen channelka Salma Vlog and Entertainment. intaan muuqaalkan mid la mid isku arki doono, sidaas iyo nabadgelyo.